su-aashaasi maadaama ay soo noqnoqotay sheekh wejiga labaad iyo qaybta labaad bal sheekh waxaad noo yar dul istaagtaa masalada xaamilada iyo murdicada haddaan dadka u micnaynana dumarku sanadkii waxay maraan mar ay ilmaha uurka ku sidaan iyo mar ay nuujiyaan dabeed iyagana soon badan baa ka taga marka iyaga ma kafaara lagu leeyahay mise laguma laha maalmihii haddii kala garan waayaan bilihii maxay samaynayaan bal masalada sheekhna tawdiixi adigoo insha allahu tacaala inoo soo koobiyo ruuxa dumarkee uurka leh ama ilmo yar naaska nuujinaysa xaamil iyo murdic horta culummadu way isku khilaafeen marka dee cilmiga iyo kutubta cilmiga laga khilaaf baa ku jira qowlka saxda ah haddaynu sheego ibnu cabbaas iyo ibnu cumar saxaabadii cid khilaaftayna lama hayaba mukhaalif min asaxaaba lamama hayaba saxaabadu masaa'ilka qaar bay isku khilaafaan laakiin haddii saxaabadu aan isku khilaafinba dee masaladaas way culusta ibnu cabbaas iyo ibnu cumarba waxay yidhaahdeen gabadha xaamilka uurka leh ama ilmaha naaska nuujinaysa sida saxda ah qof miskiinay quudinayaan markaa 30 cishaba miskiin bay quudinaysa 30 maalmoodba miskiin bay quudinaysa 30 miskiin bay noqonayaan laakiin ma qallaynayso waayo waxa laga yaabaa bishii horena inay xaamil ahay inay uur lahay imikana ilmihii naaska nuujinaysa ama waxaaba dhacdaba 5 sano ma inay xaamilba tahayba dumarka qaar ama dee xaamil iyo murdic labadaba inay tahay waana shay soo noqnoqonaya walaalayaal marka qowlka saxda ah ee saxiixa ah ma qallaynayso laakiin miskiin bay quudinaysaa maalin kasta wallahu tacaala aclam.